السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسوري أفجويان إذا أفجويان كل عصبتها وحكى عصر لها إن نقول صبرت فيسبوك يوتيوب تيك توك ميل والبا نقولك هذا وما صنطها فيديو كمان أنتو حكى قاعد لنا فيديو دي ما أنت بتيجي أنسوق لي سؤالك صار نقطين أو أنك قاعد لا ترحيلك سوماليا أو جرمالك إيو أستراليا اسكو ديان أو قاركو فشل ماي إيو heshiisyadii saddexda dawladood Greega iyo Talyaaniga iyo Jarmalka ku heshiiyeen inay qaxootiga dib u celin doonaan. Okay. Su'aasheeda marka waxay tahay oo dadka badan ay soo weydiiyeen horta Dublin waa maxay? Yaasa Dublin. Labo Dublin intee muddo ayuu soconaa? Yaa la tarxiili doonaa. Okay, yaa la tarxiilku waa maxay naftirkiisa? Su'aalahaas arbaa inaan ka jawaabo. Horta Dublin waa ka soo hadalnay. Waa heshiis u dhaxeeya Europe okay oo kadana qaxootiga qofka wadanka ugu horeeyo Europe ka tirsan faraha uu soo dhigto wadankaas mas'uulka Greek soo dhigo ama Talyaaniga soo dhigo ama Spain soo dhigo ama wadanka soo dhigo wadankaas mas'uulka wadanka Europe daa'imaatid waxa ku qabanayo heshiiskii Dublin okay Dublin kaas Allah intuu socona 6 bilood ilaa iyo sanad iyo 6 bilood uu socona markuu ugu horeyso 6 bilood waaye 6 bilood dii lagu qaadi waayo ama lagu cafin waayo sanada lagu kordhin karaa haddii sanad lagu kordhiyo marka waxay noqonaysaa 18 bilood ugu badnaa marka 18 bilood waa haddii 18 bilood am sanad iyo bar hadaa joogtid okay oo Dublin ka ku jirtay wax laga qaadi waayay Dublin ka ugu jabay okay yaa la tarxiili doona waxa la tarxiila laba qofood qof Dublin ah saadaan ku sheegay qofka Dublin ka badana baa la tarxiila wadanka uu ka yimid oo Europe ka tirsan loo celiya Greek ha noqoto ama Spain ha noqoto ama Talyaaniga ha noqoto ama wadan kale Europe ka tirsan ha noqdo waa lagu celina okay kaasi waa Dublin qofka labaad la tarxiili doono waa qofka meengelyadiisa la diiday qofkaas inta loo tarxiila marka qofkaas waxa loo tarxiila wadankii asiga uu u dhashay mesela anaga Soomaaliya ka imaanay meengeliya weydiisnay Jarmalka meengelyadaadu wuu diiday okay dhibaatii balaayana sheegtay waa lagu diiday Jarmalku wuxuu xaq u leeyahay markii aysan jirin wax macquul gal oo sharci ku heli kartay aysan jirin la waayo Jarmalku wuxuu xaq u leeyahay wadanka ku waceliyo sida maalin dadkii lagu sameeyo oo kale okay maya ikhtiyaarkaaga in adigu noqotid adhaadid faqayfiliga awsqaysa waa iska baxaba noocani ma barawaba ikhtiyaarkaaga iska leh marka su'aalahan kale ay soo weydiinaysiin oo baasaboor Soomaaliyan heesta fiir baasaboor Soomaali horta goormuu shaqeeyaa baasaboor Soomaaliga daa heysatid goormuu shaqeeyna ma taqaanaa oo lagu celin kara maalintii diidma lagu siiyo okay diidma koow ma ahan laba ma ahan saddex lagu siiyo teeda kale adoo baasaboor Soomaaliya kaliya heesto oslan biyada ku celin karaanta okay waa inay kula kulmaan waa in laga dhaadhiciyo celiska okay waa in warqad laga saxiixa ogolaansho waa in la helo haddii ogolaansho aan la haysanin waxa qabanayo xuquuqda bini'aadamka ee ciidan u yaalo okay midowga Europe marka baasaboor Soomaaliya heesta okay aniga maxaa xaalkeyga qofku celinaya male haddii diidma aadan haysan okay oo diidma balaayo oo baqashan 2 2 3 4 diidma aadan haysan qofku celinaya male because fiiri waxa jirto banfka sharci bixiyo waa ku diiday maxkamada bixin karta maxkamada ku dacwootay way ku siin weysay okay maxkamad kala jirto way ku siin weysay kadib Oslanderka waxa jiro tactic loo maro okay aadi luqada baratay waa shaqaysay dhinacaas laga maraa waa laga heli karaa maya waxa dhici karto okay in asmas wax loo yaqaan Hertfall Commission because waxa jiro Christ ama gobolka aad degan tahay Osland bihoodho hooyaasha ku yaalo gobolkaasi oo waxay sameeysan wax loo yaqaan Hertfall Commission hay'ad la dhahay hay'adaas waxa ka dalbanaysa inay kiiskaaga soo fargeliso okay ay sharci ku siiyaan kadib ayaga waxay ku leeyihiin mustaqbalka maxaa rabtaa inaad sameeysid maxaa soo sameeysay maxaa hadda sameeynaysaa waxaas warqada lagu qoraa kadibna ayaga loo diraa kadib ayaga go'aan ka soo gaaraa marka macquul gal badana jiro oo sharci lagu heli kara haddii la waayo marka hal macquul gal oo sharci lagu siiyo markaas in lagu celi waa laga yaabaa marka baasaboor Soomaaliga markaas uu active noqonaa okay laakiin inta ka horeyso baasaboor Soomaali active man hadaa Dublin tahayna wadankaaga lagu ma celinaaye wadan Europe ka tirsan lagu celinaa oo bari block ak soo gali kartay Europe marka sheekada intaas waaye yaan is wareerin marka salaamu calaykum